Pauline iyo Dorika waa nin iyo xaaskii, haddana waa walaalo isku leh 4 ciyaal ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى أصحاب تقاليد من كستو أدونك جوجتان. قصدنا maanta waxay ka dhacday dalka Congo. maanta waxaynu joognaa Congo iyo Afrika. soo dhawaad asxaabta. qisadan maanta waxay ku saabsan tahay wiil lagu magacaabo Pauline iyo gabadh lagu magacaabo Dorika. Pauline iyo Dorika waa nin iyo xaaskii, haddana waa walaalo isku leh 4 ciyaal ah. sidee bay ku dhacday in walaashii uu arooso adduunkan aynu ku noolnahay korkiisa kuwiyo ku nool 8 bilyan ku dhawaad qof? maxaa ku kalifay walaashii inuu arooso? Pauline waa wiil 28 jir ah iyo Dorika oo iyaduna ka yar 2 sano oo 26 sano jir ah. Pauline iyo Dorika waxay ku noolaayeen magaalo lagu magacaabo Bunia. magaalo u dhow ayaa waxaa ka dhacay dagaal iyo xasuuq weyn. xasuuqii iyo dagaalkii ayaa soo gaadhay magaaladoodii. markuu soo gaadhay xasuuq xoog weyn ayaa ka dhacay magaaladoodii. waxaa dhacday in laga qaxo magaaladii ay ku noolaayeen oo qof kasta uu u ordo meesha wajahadiisa. waxaa dhacday qof kasta inuu ordo wajahadiisa oo qof kasta naftiisa la baxsado. marka Pauline iyo Dorika way yaryaraayeen oo waxay ahaayeen ciyaal. waxa qof kasta u orday hortiisa. Pauline wuxuu u orday hortiisa. walaashii iyo Pauline waxay isku noqdeen jiho dad u wada orday oo isku jiho ayay labadoodu u ordeen oo waxay ordaan oo socdaan maalintii oo dhan. ay socdaan oo ordaanba waxay gaadheen markii dambe tuulo lagu magacaabo Biti. tuuladaas ayaa waxay ahaayeen iyagu markaa way yaryaraayeen, ciyaal bay ahaayeen. labadoodaasoo keliya ayaa faamiligoogii ishelay. ma oga faamiligoogii meel ay ka dhaceen. waxay gaadheen tuuladaas aan idin sheegayo. waxaa arkay nin ayaa arkay oo soo kaxaystay. markuu arkay ciyaalkan yararee xaaladoodii ay u sheegeen isay maaragtay dagaalkii ku dhacay wixii uga soo sheekeeyeen ayuu nin kaxaystay. ninkii ayaa korsaday labadii ciyaalka ahaa kuwa gaajaysan oo haraadan oo xaaladoodu xaalad tahay ayuu ninkaasi kaxaystay. ninkaas ayaa korsaday. ninkii markuu korsaday caruurtiisa waaweynaatay ay soo qaangaadheen. waxaa dhacday inuu Pauline yidhaahdo waxaan u noqonayaa magaaladeydii ayaan u noqonayaa oo dadkeygii ayaan raadinayaa. wuu soo laabtay. wuxuu raadiyey dadkiisii. wuxuu yimaaday magaaladii uu kasoo jeeday. markuu yimiday wuxuu waayay qof garta. magaaladii dhanba wuxuu ka waayay qof garta iyo qof magacii faamiligiisa wax aqoonsadaba waa waayay. taas waxay ka dhigan tahay yacni inaanu qof ka noolayn magaaladan dadkii deganaa. waayo haddii dadkii deganaa nool yihiin waxaa la garan lahaa faamiliga magaciisa iyo dadkii waaweynaayay faamiligan meeshan degan waa la garan lahaa. laakiin waa la garan waayay. sababta taasina waxay cadaynaysaa in ay dadkaasi aana cidi ka noolayn oo magaaladaas la xasuuqay. saas darteed dad cusub ayaa hadda iyo kow soo degay. wiilkii oo niyad jabsan ayaa ku noqday
tuuladii uu ku noolaa ninkii soo korsaday iyo walaashiina kaga yimiday. telefoonkiina meeshii buu kaga yimiday. wuxuu yidhi haddii aad aragtaan cidii raadinaysa ama cidii garata telefoonka ha laygala soo hadlo. wuxuu u noqday Mitty. markuu Mitty u noqday halkii noloshoodii iska wateen ayaa mar dambe waxaa dhacday inuu u soo bandhigo walaashii inay isguursadaan. walaashii ayaa hadalkii madaxeeda ayuu ka weynaaday. way ka yaabtay. waxay istiri qofkan waxbaa ka siiya. way ka xanaaqday. waxay ku qaadatay 2 bilood inayna isla hadlin oo qof kastaba qofkan inaanu aqoonin u dhaqmo. walaashii waxay ku qaadatay inaanay la hadlin 2 bilood ayay ka xanaaqsanayd oo inay la hadli jirin, waxba la sheegayn jirin. waxaa dhacday siduu ugu waday hadalkii ugu celcelinayay kama daalo. uu u leeyahay laasim waa inaynu is aroosno si aynu u badbaadino dhiigga faamiligeena. ma rabo inaad adiga nin kale aroostid, aniguna gabadh kale arooso, labadeenuna kala dhulno. ma rabo qofba meel kulmo, waa in is aroos. wuxuu ku wado gabadhii muddo sidii ugu waday. gabadhii hadalkii ugu celcelinayay. markii dambe wuu ku guuleystay inuu ku qanciyo, isagoo yidhi sababta ku kaliftay waxaan rabaa dhiigga familigeyga inaan badbaadiyo. waxaa dhacday inay gabadhii ku dhahdo ninkii ina soo koriyey hortiisa iskuma guursan karno. ninkii intaasoo dhan ina soo geliyey ee waxaasoo tacaba ina soo geliyey iyo tuuladan kuma noolaan karno. waa inaynu tuulo kale aynu tagno oo iyo meel aan laynaga aqoonin. waa inaynu u guurno. tii ayay isku waafaqeen. way guureen. way ka tageen. waxay tageen tuulo aan laga aqoonin oo tuulo fog ah oon cidna ka garanaynin ayay tageen. halkii ayay isku arooseen. markay isku arooseen halkiibay ciyaal ku dhaldhaleen. halkiibay deganaayeen. kuwii halkii sidii u degaan oo ciyaal ku dhaldhalay oo cidna aqoonsan ayaa waxaa tegay tuuladii. waxaa tegay nin sheegay inay 2 qof walaalo yihiin. markaas dadkii tuulada deganaa ayaa bilaabay inay ku xantaan oo yidhaahdaan dadkan waa walaalo. oo sheekadiibaa sidii way ka diqadoodeen. dadkiioo ku xamanaya. dadkiioo markasta le ay maqlaan dadkan waa dad isguursaday oo walaal. iyaguna ma rabaan noloshooda inay cid ogaato. waxaa dhacday inuu maaragtay ninkii tuulada mas-uulka ka ahaa inuu u tago uga ashkatoodo dadkii. uu yidhaahdo dadkan khatiyaanba ka jooga. dadkan waa dhib bay igu hayaan oo saasayna leeyihiin. markaa ninkii meeshii uu ka raray. wuxuu geeyey tuulo yar oo tuuladaasi hoos timaado. tuulo kasii yar oo tuuladaas hoos timaada ayuu geeyey. marka halkoogiibay iska degeen. halkoogiibay deganaayeen. halkoogiibay ciyaalkaas ku dhaldhaleen. waxay isqabaan 10 sano. ilmahooga ugu weyni wuxuu jiraa 8 sano. wuxuu yidhi waxa la weydiiyey waxa sababtan ku kalifay. wuxuu yidhi waxaan badbaadinayaa dhiigga faamiligeyga. waxa igu kalifay inaan walaashay arooso. dhiigga faamiligeyga inaan badbaadiyo ayaan u guursaday walaashay. kale walaashay waxay i xasuusisaa hooyaday. ayaan xasuustaa markaan arko walaashay oo xoog ayay walaashay ugu eeg tahay hooyaday. ciyaalkayguna waxay i xasuusiyaan walaalahay iyo faamiligeygii ay i xasuusiyaan. waxaan moodaa faamiligeygii aan waayay inaan ku dhex noolahay markaan arko.
waxaa la weydiiyey inuu ka qoomamay iyo inuu walaashii aroosay iyo inuu mar yani inuu ka qoomamaynayo. wuxuu sheegay inaanu marnaba ka qoomamayn doonin uuna qaladna u arkin wixii noloshiisa intuu noolaa noloshiisa wixii ugu fiicnaa uu sameeyey ay tahay inuu walaashii aroosay ayuu sheegay. iyaduna waxay sheegtay inay walaalkeed inay aroostay ay tahay inay fiicnayd inay walaalkeed aroosto sababtoo ah waxay tiri qofna qof ma khiyaamayo. laba qof oo walaala ayaanu nahay laakiin isma khiyaamayn karno. waxay sheegeen waxay isku dayeen markasta isku dayaan sidai ciyaalkooga uga qarin lahaayeen xaqiiqada inay laba qof oo walaalo ah yihiin. markasta taas ay dadaalkeega galaan saan u ogaan ciyaalkoogu si aanay u ogaanin. waxaana sheegeen inaanay marnaba aanay u sheegi doonin ciyaalkooga ilaa ay dad waaweyn noqdaan mooyaane ay isku dayayaan inay ka qariyaan. laakiin waxa ay sameeyeen marnaba aanu ahayn qalad. noloshoodana ma rabaan inay dib uga laabtaan go-aankii ay qaateen oy marnaba ka qoomameeyaan ama ay dib uga laabtaan marnaba ma rabaan. noloshooda intay noolyihiin inay saas ku dhammaystaan oy wada noolaadaan ayay rabaan siday sheegeen. waxaana sheegeen inuu walaaltinimadii meesha ka baxday oo iminka yahay nin iyo xaaskiis. qisadan maxaad ka dhihi lahayd? wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.